asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhammaan daawadayaasheena sharafta leh ee ku xiran janalkeena. alle wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala: subxaana aladii asraa bicabdihi layla min almasjidi alxaraami ila almasjidi alaqsa aladii baaraknaa xawlah إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. wuxuu alle subxaanahu wa tacaala ammaanay naftiisa, wuxuuna weyneeyey sha'nigiisa, awood u awoodo wax cid kale oo aanan isaga ahayn aysan awoodin awgeeda. ilaah aanan isaga ahayn ma jiro, waana allihii addoonkiisa Muxamed calayhi salaatu wassalaam ruuxdiisa iyo jirkiisaba isagoo soo jeeda oo aanan riyo ku jirin xilli habeen ah masjidul xaraam oo Mako ku yaalla ka dheelmiyey oo geeyey masjidul aqsa oo baytalmaqdes ku yaalla, kaasoo alle subxaanahu wa tacaala hareerihiisa beero iyo miro iyo keyrkoodba ku barakeeyey oo deegaanna ooga dhigay in badan oo ambiyadiisa ka mid ah, si loo arko cajaa'ibta ay leedahay qudraddiisa iyo si ay u noqoto daliil muujinaya kelinimadiisa. alle subxaanahu wa tacaala waa mid maqla dhammaan codadka oo wax walbana arkaya, wuxuuna qof walba wuxuu mutaysto ku siiyaa adduunyada iyo aakhiradaba. kadib markii dhibaatooyinku ay ku darnaadeen oo murugooyinkuna ay ku bateen, wuxuu nebigu calayhi salaatu wassalaam ku jiray xilligii uu ugu baahida badnaa qof garab istaaga oo go'aankiisa ugu kaalmeeya. waxay qisadu ka bilaabanaysaa markii uu malakul jibriil calayhi salaam ku soo degay nebiga calayhi salaatu wassalaam isagoo ay la socdeen 2 malag oo kale. markaas bay intay qabteen kala jeexeen laabtiisa, kadibna qalbigiisa intay soo bixiyeen ayay waxay ugu dhaqeen biyaha zamzam, kadibna waxay iimaan iyo xikmad oogu buuxiyeen qalbigiisa, waxayna oogu celiyeen booskiisa. kadibna jibriil calayhi salaam ayaa la yimid ama u keenay buraaqada, taasoo ah daabbad aad u layaab badan oo cagaheeda dhigaysa halka ugu dambaysa fogaan araggeeda. kadibna nabiga calayhi salaatu wassalaam ayaa koray, waxayna isla aadeen baytalmaqdes. markii ay tageenna wuxuu jibriil calayhi salaam buraaqadii albaabka agtiisa ugu xiray xalqadii ay dhammaan ambiyadu calayhimussalaam ku xiran jireen. kadibna waxay gudaha u galeen masaajidka, markaas buu nebigu calayhi salaatu wassalaam halkaas ku tujiyey ambiyada isagoo imaam u ah. kadibna wuxuu jibriil calayhi salaam nabiga sallallahu calayhi wasallam la koray samaawaadka, wuxuuna jibriil calayhi salaam ahaa mid samo walba markii uu soo gaaro gargaraaca oo idin weydiista si uu u soo galo. markaas baa loo idmayey ama loo oggolaanayay in ay soo galaan, iyadoo malaa'igtu ay aad u soo dhowaynaysay imaanshaha dhammaan khalaa'iqda sayidkooda ahna ambiyada imaamkooda xabiibkeena Muxamed calayhi salaatu wassalaam. wuxuu nebigu calayhi salaatu wassalaam samada koowaad ama samada dunida kula kulmay nebi aadam calayhi salaam, kadibna salaan ayay isdhaafsadeen, khayr ayuuna abuuna aadam calayhi salaam oogu duceeyey. wuxuu nebigu calayhi salaatu wassalaam soo arkay isagoo fadhiya oo midigtiisa iyo bidixdiisa ay ku sugan yihiin arwaaxda durriyadiisa ama awlaaddiisa. markii uu midigtiisa milicsado waa uu qoslayey, markii uu bidixdiisa milicsadana waa uu oynayey. kadibna wuxuu nebigu calayhi salaatu wassalaam arrinkaas wax ka weydiiyey jibriil calayhi salaam. markaas buu jibriil u sheegay in kuwa ku sugan midigtiisa ay yihiin durriyadiisa ama awlaaddiisa kuwooda jannada gelaya, wuxuuna ku farxayaa aragtidooda.
kuwa ku sugan bidixdiisana waa ahlunnaarka, wuxuuna ka murgayay aragtidooda. kadibna wuxuu nebigu calayhi salaatu wasalaam u gudbay samadii labaad, wuxuuna halkaas kula kulmay nebi ciise iyo nebi yaxye calayhim assalaam. waxay soo dhoweeyeen soo dhowayntii ugu wanaagsanayd, waxayna ku yidhaahdeen marxaban bilakhi saalix wannebiyi saalix. samadii saddexaadna wuxuu nebigu calayhi salaatu wasalaam ku soo arkay walaalkiisa yuusuf calayhi salaam, wuuna salaamay. wuxuuna nebigu calayhi salaatu wasalaam ku sifeeyey qowlkiisii ahaa waidaa huwa qad uctaa shatra alxusn, ama waxaa la siiyey quruxda barkeeda. kadibna wuxuu samada afaraad kula kulmay walaalkiisa idriis calayhi salaam. kadibna wuxuu samada shanaad kula kulmay haaruun calayhi salaam. kadibna wuxuu jibriil calayhi salaam nebiga sala allahu calayhi wasallam la koray samada lixaad si uu u soo arko walaalkiisa muuse calayhi salaam. salaan kadibna waxaa ooyay nebi muuse calayhi salaam. markaas baa waxaa lagu yidhi, maxaa kaa oohinaya? wuxuu yidhi, waxaan la oynayaa wiil gadaashayda la soo saaray ayaa ummaddiisa waxaa jannada ka gelaysa in ka badan inta jannada ka gelaysa ummaddayda. intaas kadibna wuxuu samada toddobaad kula kulmay khaliiluraxmaan ibraahiim calayhi salaam. wuxuu soo arkay isagoo dhabarkiisu ugu tiirsan yahay baytalmacmuurka, taasoo ah kacbada ahlusamaaga, kaasoo maalin walba ay soo galaan 70,000 oo malaa'igta ka mid ah, kuwaasoo aanan dib dambe ugu laabanin weligooda. halkaas ayuu nebi ibraahim calayhi salaam nebiga sala allahu calayhi wasallam ku soo dhoweeyey oo una duceeyey. kadibna wuxuu ku yidhi, yaa muxamed, iqra' ummataka minii salaam wa akhbirhum ana aljannata tayibatu turba cadbatu lmaa wa annaha qaycaan wa anna gharaasaha subxaana allah walxamdu lilah walaa ilaaha ila allahu wallahu akbar. muxamedow, salaan iga gaarsii ummaddaada, waxaadna u sheegtaa in jannada carradeedu ay wanaagsan tahay oo biyaheeduna ay macaan yihiin oo ciiddeeduna ay fidsan tahay ama ay siman tahay. waxaadna u sheegtaa in waxa lagu beerto jannada carradeeda ay tahay subxaana allah walxamdu lilah walaa ilaaha ila allahu wallahu akbar. intaas kadibna wuxuu jibriil calayhi salaam nebiga sala allahu calayhi wasallama ula sii koray sidratulmuntaha xaggiisa. waana geed aad u qiimo badan oo xajmigiisuna uu aad u weyn yahay oo midhihiisuna ay aad u waaweyn yihiin oo caleemihiisuna ama caleentiisuna ay la eg tahay dhagaha maroodiyaasha oo kale. webiyaal ayaana hoostiisa ka soo baxa. wuxuuna nebigu calayhi salaatu wasalaam halkaas ku arkay malakul jibriil isagoo dhammaystiran oo leh suuraddiisii malaa'ignimada, wuxuuna lahaa 600 oo garbood. intaas kadibna waxaa la gaaray laxdaadkii ama wakhtigii nebiga calayhi salaatu wasalaam oogu farxadda badnaa, markaasoo lagu sharfay inuu alle subxaanahu wa tacaala la kulmo oo uu hortiisa istaago oo uu la sheekaysto si dhammaan ahwaashii iyo dhibaatooyinkii uu ku soo noolaa ay ula fududaadaan ama ula yaraadaan. wuxuuna alle subxaanahu wa tacaala halkaas addoonkiisa ugu soo waxyooday wixii uu u soo waxyooday. kadibna wuxuu isaga iyo ummaddiisaba ku soo faral yeelay 50 salaadood habeen iyo maalin walba. kadibna waatuu nebigu calayhi salaatu wasalaam alle subxaanahu wa tacaala ka dalbanayay inuu ka khafiifiyo ilaa laga soo gaarsiiyey 5 salaadood oo keliya. wuxuuna nebigu calayhi salaatu wasalaam safarkan ku soo arkay jannada iyo nicmooyinkeeda. wuxuuna jibriil calayhi salaam soo tusiyey kowtharka,
wuxuu kaloo soo arkay geedka la yidhaahdo shajaratu zaquum, kaasoo uu alle subxaanahu wa tacaala ku sifeeyey qowlkiisii ahaa waashajarata almalcuunata fi lqur'aan. wuxuu kaloo soo arkay maalik oo ah malagga haya naarta furaheeda. wuxuu kaloo soo arkay haweenaydii mu'minadda ahayd ee timaha u shallayn jirtay fircawn gabadhiisa, taasoo diiday in ay alle subxaanahu wa tacaala ku kufriso oo kadibna fircawn uu dab ku gubay. wuxuu kaloo soo arkay dajjaalka isagoo leh suuraddiisa oo timihiisu ay aad u adkaayeen oo hal ilna ay ka maqan tahay oo jidhkiisuna uu aad u weynaa oo midabkiisuna uu aad u gaduudnaa oo labadiisa indhood dhexdooda ay kaafir ugu qoran tahay. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. daawadayaasheena sharafta leh, fadlan ha iloobina muuqaalka inaad like saartaan oo aad la sii wadaagtaan asxaabtiina. haddii aad inagu cusub tahayna fadlan ha iloobin janalka inaad subscribe saarato si aad inoo dhiiro geliso, gambaleelkana furo si ay kuu soo gaaraan muuqaaladeena xiga.